basaasnimada waa nooc ka mid ah ciidamada, balse u howlgala qaab ka duwan qaabkay u howlgalaan ciidamada. waana ciidan ay adag tahay inay aqoonsadaan cadowgu. waxaa jira wax la yiraahdo fifth column ama Soomaali ahaan safka shanaad. waa qayb ciidanka ka tirsan, laakiin ka tirsan cadowgaaga, kuuna soo gudbinaya xogaha cadowga, cabsi gelinaya cadowga, qallaasana ku dhex abuuraya cadowgaaga dhexdiisa. waana qayb ciidanka ka tirsan ayna adag tahay la'aantooda inaad guulaysato. fikradda ah daabuurul qaamis, fifth column ama safka shanaad, yaa keenay fikradan yaana fuliyay markii ugu horeysay safka shanaad ama daabuurul qaamis. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeena maanta. waa qidad uu curinteedu lahaa diktatorkii Francisco Franco, balse qofkii ugu horeeyay ee fuliyay wuxuu ahaa janankii Francisco Franco u qaabilsanaa waqooyiga Spain, magaciisana uu ahaa Emmanuel Mola. Mola wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee afkiisa laga maqlo adeegsiga weedha fifth column oo Soomaali ahaan noqonaysa safka shanaad. Emmanuel Mola wuxuu ku dhashay Cuba 9 Julaay 1887. aabihiisa Emmanuel Mola Lopez oo ahaa abaanduulihii ciidanka madaniga ah wuxuu guursaday Cubana Romano Fidal oo ah gabar reer Cuba ah oo Soomaali ah. kadib musiibadii Spain ka dhacday 1898 qoyskii Mola waxay ku noqdeen Spain bishii Agoosto 28 1904. Mola wuxuu galay akademiyada ciidanka lugta ee Toledo, sidaas ayuuna ku bilaabay xirfadiisii military. markii uu dagaalkii sokeeye ka qarxay Spain 1936 oo uu socday muddo 3 sano ah, dagaalkuna uu ahaa weerar iyo weerar celis u dhaxeeya labada dhinac. kadib kulan la yeeshay hogaamiyihii ciidanka Isbaanishka oo magaciisu ahaa Emmanuel Mola, ayaa mid ka mid ah ka soo qaybgalayaashii weydiiyay isagoo leh afarta saf midkee baa furan doona Madrid. xilligaa Mola ciidamadiisu waxay u qaybsanaayeen 4 saf oo ku hareeraysan jihooyinka afarta ah ee magaalada Madrid. Emmanuel Mola ayaa ugu jawaabay isagoo leh safka furan doona Madrid waa safka shanaad. wuxuu ula jeedaa wakiilada ku dhex dhuumanaya kacdoon wadayaasha, maadaama uu lahaa wakiilo sirdoon oo isaga uu shaqeeyo si qarsoodi ah magaalada Madrid gudaheeda. waxay u qaabilsanaayeen inay shidaan cabsida laabta cadowga iyo soo gudbinta macluumaadka, taasoo gacan ka geysanaysa soo dhigista awoodda cadowgiisa. safka shanaad waxay ahayd shaqadiisa sidii u niyad jamin lahaa dadka la dagaalamaya Emmanuel Mola. dagaalkii sokeeye ee Isbaanishka wuxuu qarxay Luulyo 17 1936 ilaa Abriil 1 1939. wuxuu ahaa isku dhac weyn, wuxuuna bilaabmay kadib isku day afgambi oo koox jeneraalo ka tirsan ciidamada Isbaanishku ku qaadeen dowladii Isbaanishka oo uu hogaaminayay madaxweyne Manuel Lazania. kadibna waxay Spain u qaybsantay 3 maamul. qaybta koowaad waxay la baxday Jamhuuriyiinta Dimuqraadiga ah, qaybta labaadna waxay la baxeen bidixda Jamhuuriga ah ee Spain, halka kuwa saddexaad ay la baxeen wadaniyiin. waxaana hogaaminayay qaybtaani jeneraal la oran jiray Francisco Franco oo noqon doona hogaamiyaha xukumi doona Spain 40 sano oo xiriir ah dagaalka sokeeye kadib. inaad cadowga ku dhex abuuratid dad kuu soo basaasa oo ku keen xogaha qarsoon ee cadowga waa muhiim qarnigaani. weliba dadkaasi aad ku dhex abuuranaysid cadowgaaga waa inay ku hayb noqdaan cadowgaaga si aan looga shakin, xataa haddii laga shakiyo uu ka heli karo garab ama caawin isla cadowgaaga. cidna lagama adkaan karo qarnigaani ilaa aad hesho dad kuu basaasa oo kuu dhex gala kuna dhex abuura khalkhal iyo khilaafaad cadowgaaga. daawade waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. kulanti dambe oo xiiso leh.